qorqor waxaan iskaga ilaalinaynaa sida cudurka fayraska uu wadanka la iskaga ilaaliyay baan iskaga ilaalinaynaa fayraska sida la iskaga ilaaliyay baan iskaga ilaalinaynaa wuxuuna ku talagalay sida inaan iskaga ilaalino go'doonka iyo hawsha uu wato oo dawladda ay salka ku hayso oo macnaha waxa dadka shacabka oo deegaamada looga daba tagay lagu weeraray oo lagu gumaadahayo oo shaarka dawladnimada loo gashanayo arinta waa ka soo horjeednaa arintii dawladnimada iyo arintii meesha taalay ma ahan waxaanu leenahay arinta dabada asaga ka riixay qorqor hadho sheegno kana cadayno haddaan nahay beelaha dega galgaduud galmudug galgaduud waqooyiga galguduud beelaha dega haddaan nahay waxaan rabnaa halkaan inaan ka sheegno kalsoonideedii inaan kala laabannay maamul goboleedka galmudug oo uu hogaaminahayo madaxweynaha qoorqoor markaan aragnay sida waxashnimada leh oo soomaalinimada ka fog oo islaamnimada ka fog oo shacabka uu u gumaadahayo asaga iyo dadka uu soo diray markaan aragnay inuu weli u ooman yahay dhiig soomaaliyeed dhiig deris markaan aragnay inuu u ooman yahay go'aan cad baan waxaan ka gaaray haddaan nahay beelaha waqooyiga galguduudaga inaanaan la shaqayn meesha aan joogno inuusan imaan inaanaan taageerin beesha caalamkana fartiin baan u diraynaa iyo dawladda federaalka oo uu hogaaminahayo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre fartiin baan u diraynaa arrintaa inay si degdega wax uga qabtaanna waa rabnaa galmudug waxaa ka dhalatay 3 dawladood 3daa dawladood mid waxaa hogaaminahaya cabdikariin mid waxaa hogaaminahaya ninka la yidhaahdo xaaf midna waxaa hogaaminahayay ninka la yidhaahdo qoorqoor oo hadda ugu dambeeya intii hore oo dhan mid kasta markuu kursiga fuulo dhibtaan hadda taagan waa ka muuqanaysay oo deegaan kicinta ah oo barakicinta ah oo shacabka qayb la garab istaagahayo waxaan islahayn maanta qoorqoor sidii waa ka bedelaanahayaa wuxuu yidhi gaajada ka bax baan guntiga u furtay ma haddaan gala gayrashkeedii meeshaan madaxweyne soomaaliyeed ka malaynaynay meeshaan madaxweyne waaye arag inuu yahay aan ka malaynaynay meeshaan islahayn beelaha dariska ah oo 40 sano diriirahayay daacadnimo islaamnimo walaalnimo ku dhex galahayaa wuxuu go'aansaday inuu meeshii ka sii wado inuu yidhaahdo halla barakiciyo inuu yidhaahdo xabadda ka bilaaba tuula salmaan wixii shishe ka xiga wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo ballacadya dhaafa wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo bataanta 4 sano madaxweynahaan ahay waa inaan beesha maxamed ameere la yidhaahdo waxba laga soo reebin wuxuu yidhi waa in waxaad samaysaan buu yidhi fartiimaha si degdega moobeelka waa inaad igu soo tuudhaan sida hadba aad wax u gaarsiinaysaan wuxuu adeegsanahayaa oo horena kuwii hore u adeegsanahayeen haddana gaar u adeegsanahayaan ciidamo gaar ah oo beelo khaasa leeyihiin oo 21aad la yidhaahdo wuxuu diiday xataa beelaha kale oo galmudug wax ka dega oo aan dhib hore u soo dhex marin marna waa diiday inuu meesha keeno dawladda waxaan leenahay war waxaa la yidhi nin maqan xoolo looma raaci waayo meesha waxa ka socda arka ra'iisul wasaaraha khayre waxaan leenahay arag waxa meesha ku jira maalin walba inta lagu yimaado galmudug baa la dhisay in la yidhaahdo beel lagu baabi'iyo oo lagu garab istaago wax macnaa samayn mayso xabadda ka soconaysa ballacad xabadda ka soconaysa furuntii foore xabadda dhabad u dhaaftay xabadda dhabad waqooyiga u dhaaftay dadka ku gardaran waa la arkahayaa soomaalidu dhulka waa kala degan tahay deegaanka waa kala leedahay wax darisnimo iyo walaalnimo waxaan hayn kama dhexeeyaan beeshii damacda beel inay xoogtana hadday dawlad kasta ka haysato ma xoogi kadho waxaan leenahay arrintaasa loo istaago waxa laga qabto la isma xoogi karo dhulka sida leeyahay waa la yaqaan waxaan u sheegaynaa dhammaan dawladda federaalka iyo maamulada ka jira deegaanka in weerar wuxuushnimo ah ay inugu soo qaadeen ciidanka galmudug iyo kuwa loo bixiyey 21aad oo shaarka loo geliyey kuwaasoo ku adeegahaya magac qabiil watana darajadii dawladda maaddaa weerar culusna ay nugu soo qaadeen kuna dhinteen kabtanadoodii iyo kornayladoodii haddana difaaca kaga jira deegaanka dhabbad iyo ballacad iyo tuula sarmaan deegaankii annagu aannu lahayn kaga jira difaaca saa lacadligeed waxaannu u sheegaynaa dadweynaha dhammaantood waxaannu marka hore leennahay qorqor ha dhaco waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo adduunweynaha intaba waxaan u sheegaynaa 3 maamul baana soo martay galmudug marka la yidhaahdo baa soo martay 3daas madaxweyne mid walba wuxuu qalqaalinayey mid walba dagaal buu qalqaaliyey
waxaa ugu xun qoorqoor baa ugu xun cabdikariin guuleed baa qalqaa ugu horreeyey dagaal buu ku soo qaaday ilaa saaxo bangeelle ceelka la yidhaahdo balambal inta ka dhaxaysa intaas wuxuu ku soo qaaday dagaal xaaf baa qabsaday sidoo kale buu dagaal ugu soo qaaday xagga waxaa u xiga balambal xaggana waxaa u xiga saaxo intaas beeshaas side ay deggan tahay dagaal buu ku soo qaaday qoorqoor baa haddeer qabsaday haddeer qoorqoor wuxuu ka bilaabay bangeelle furuntifoore ballacad dhabbad intaasuu ka bilaabay adduunka furuntifoore saraakiishii baa ku le'atay waxa weeye kornayladii baa ku leeday ninka la yidhaahdo qoorqoor oo loo doortay galmudug inuusan ahayn nin mas-uuliyaddaa qaadi kara inuusan ahayn nin u qalma markaannu aragnay haddiibana asagoon tegin oo xilkii la wareegin oo kunsiyihi tirsanba wuxuu abaabulay dagaal qabiil wuxuu ku sameeyey ciidankii maalintii dhoweyd uu u ergoonahayey oo uu u tegay gaalkacyo oo uu xaaf soo kaxaystay oo u ergoonahayey xaaf wuxuu sameeyey teknikadii xaaf waday waxay saraakiishoodii iyo xaaf ciidankii wada waxay ka qayb galeen ciidamadii joogay etoobiya furuntifoore raggii ku laayay uu ahaa xaaf iyo asagu waa isku kaashadeen dadka shacabka dadkii hore oo soomaaliyeed ehelkii hore soomaaliya siyaad bare markuu dhacay ehelkii dagaalkii ahaa yuu dib u cusboonaysiiyey gallinsoor iyo deegaankii iyo dalkii markuu isku furilaaboo dhabbad ka bilaabay wuxuu sameeyey xaaf buu soo kaxeeyey 6dii baabuuroo xaafoo teknikahayd baa ka qayb gashay baabuurtii gallinsoor ka timid oo 6 ahayd baa gelinkii dambe gashay